Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa khiyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee alla la socda barnaamijyadaan soo dhigno. Haddii aad ku cusub tahay page-kani fadlan inoo saar subscribe, haddaadan ku cusbeenna fadlan inoo share garay. Mahadsanid. Naftunugeedna maanta barnaamijyada waxaan kusoo qaadan doonaa qodobo ay ka mid yihiin wacyigelin, baraarujin iyo sidoo kale waxyaabo qaar naftaada waxtar u ah. Qofka mas'uulka ah waxaa ka mid ah dhaqankiisu inuu noqdo qof mahadceliya. Ugu horreyn inaad Ilaahay u mahadceliso, inaad labadii waalid ee ku koriyay ee ku badbaadiyay aad u mahadceliso, in mujtamaca qof kasta ee ku sameeyay asxaan waa inaad u mahadcelisaa. Haddii aad sidaas yeesho waxaad bulshada dhexdeeda ka dhex noqonaysaa qof aad loo tixgeliyo ee mudnaanta gaar ah la siiyo. Si kastoo dadaalkaaga uu liito, marnaba mirihiisu eber ma noqdaan. Qof kasta qalad waa uu galaa, balse waxaa ugu fiican kan ogaada inuu qalad ku jiro dibna ugu soo laabtaa. Indhahaaga waxaad ku arki kartaa waxa kaa horeeya oo keliya, laakiin maskaxdaadu wax kasta ayaad ku arki kartaa. 3 waxyaabood oo dib aan loo soo celi karin. 1 waa waqtiga tegay. 2 hadal la yiri ama hadalkaa tegay. 3 kalsooni markaa luntay, intaba dib lama soo celin karo. Rajadu waa waxa kaliya ay ku horseeda inaad hore u socoto, ee waxaan ku leenahay marnaba ha rajo dhigin. Xaaskaaga ama saaxiibtaada waxaad ku tiraahdaa wallaahi alla baan ku dhaartay codkaagu aad baan u jeclahay, waayo dumarku waa sida gitaarka oo kale, ma jiro cod xun oo ka imaanaya gudaheeda, balse qofka tumaya ayaa aqoon laxanka nolosheeda. Sidaas weeye dumarku iyagana mar walbo wax xun kuma imaado. Had iyo jeer waxay ka fikirtaa sii jiritaanka qoyska ama laba qofood ee saaxiibka ahi. Ku dhex xaaskaaga ama saaxiibtaada ee aad la socoto, haddii geerideedu dhaqso ku timaado oo aan godka ka horgalo, ha iloobin dhamacaygu waxa uu ahaa la noolaashahaaga, la joogistaada iyo sidoo kale la hadalkaaga. Jacaylku waa naxariis haddii la helo lamaanayaal ay ka go'an tahay inay isku hibeeyaan dareen daacada iyo tii allo ay ku dheehan tahay, kana madax bannaanaan ujeedo aan uurka ku jirin iyo afka kiisa. Waxaan ula jeedaa jacayl been ah. Kale xaaskaaga ama saaxiibtaada aad noloshooda la wadaagayso waxaad ku tiraahdaa waan ku jeclahay, waxaan ku doonayaa berito. Had iyo jeer nolosheeda ayay ku doonaysaa, markasta si ay kugu nasato. Runta wax yar ayay ku dhaawacaysaa, balse beentu weligaa ayay ku dhaawacaysaa. Rajadu waa waxa kaliya ee nafta lagu sasabi karo. Janno inaad gasho waxaa kaa xiga oo keliya inaad dhimato, oo waa haddii aad Ilaahay raarigeliso oo aad ku sugnaato sunnadii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Qofna ha quursan sababtoo ah ma ogid awooddiisa u qarsoon. Ku dhex xaaskaagu kuma dhex noolid qalbigayga oo keliya, laakiin waxaad ku dhex nooshahay xubin waliba oo ka mid ah jirkayga. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkayga, subscribe saar oo noo share gareey. Mahadsanid.